بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داودyaal ku soo dhawaada xogta cayaaraha oo idin soo gudbinaysa wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. macallinkii hore ee xulka qaranka England Roy Hodgson imikana ah macallinka kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace ayaa waxa uu hanka ku haya in uu garoonka kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace uu wali ku sii hayo ciyaaryahanada kala ah Walfred Saha iyo Wan Bissaka iyo sidoo kale Batshawi oo ah ciyaaryahan ama ahaan ee kooxda Chelsea ugu soo qaateen oo u ciyaara kooxda Crystal Palace. macallinkii hore ee xulka qaranka England Roy Hodgson ayaa waxa uu markaasi uu macallin ka sii ahaan doona xilli ciyaareedka soo socda kooxda Crystal Palace isagoona markaa saddexdaas ciyaartooy imika aynu idin soo sheegnay uu u arko in markaa wax badan kooxda ay u hayaan uuna doonayo in ay sii joogaan garoonka kooxdaas ay ka dhisan tahay. kooxda kubadda cagta Manchester United iyo Juventus waxa lagu soo waramayaa inay heshiis ku wada gaareen iibka ciyaaryahan Paul Dybala oo kooxda kubadda cagta Juventus u ciyaara si uu ugu biiro kooxda kubadda cagta Manchester United. Paul Dybala oo in muddo la xiriirinayay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa xilli ciyaareedkan waxa la leeyahay waxa macquul ah in uu garoonka Old Trafford uu markaasi tago. Paul Dybala ayaa xilli ciyaareedkan 29 kulan kaliya u saftay kooxda kubadda cagta ee Juventus isagoo kursiga keedka inta badan fadhiyay. waxa la leeyahay heshiiska labada kooxood Juventus iyo waliba Manchester United wada gaareen ayaa waxa sidoo kale qayb ka noqonaya ayaa la leeyahay Alexis Sanchez oo isagana u wareegi doona dhanka Juventus. dhinaca kalena kooxda kubadda cagta Barcelona waxay aad u raadinaysaa oo xiiso weyn markaasi u haysa ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta ee Arsenal iyo xulka qaranka France La Gazette ayaa waxa uu markaasi bedel u noqon doona ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta Barcelona iyo xulka qaranka Uruguay la leeyahay dhaawac ayuu qabaa oo qalliin ayuu maray. bedel ayaana markaasi ay ugu dhigan doonaan qofka labaad ay markaas u isticmaalayaan dhinaca weerarka kooxda Barcelona. warar kalena waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta Juventus ay markaasi albaabada ay u ballaqday si uu markaa gabi ahaanba kooxda Juventus isaga tago Mario Mandzukic oo markaa kooxda in muddo u soo ciyaarayay ee Juventus. ciyaaryahankan oo hore ugu soo ciyaaray kooxo waaweyn sida Atletico Madrid iyo kooxda Bayern Munich iyo kooxda Juventus ayaa waxa la sheegayaa in da'da markaasi ka daba timid oo markaa kooxda Juventusna ay doonayso in ciyaaryahano fiican oo dhinaca weerarka oo da'yar ah ay la soo wareegto iyagoo imika ay haystaan Cristiano Ronaldo taa bedelkeedana Mandzukic ay iska fasaxayaan. kooxo dhowr ah oo Premier League ka dhisan ayaa aad u doonaya Manchester United ayaana kamid ah. ugu dambeyntiina macallinka kooxda kubadda cagta ee Liverpool Jurgen Klopp ayaa waxa uu sheegay in uu u hambalyeeyo kooxda Manchester City oo sanadkan ay ku guuleystay Premier League isagoo markaa kaalinta labaad ee horyaalkana ee Liverpool oo isagu macallin u ah ay galeen. waa cajiib wixii ay sameeyeen xilli ciyaareedkan oo dhan ayuu yiri Klopp. maanta waa maalin qariib ah ay ahayd waan ficnayn ilaa iyo markii hal iyo eber hogaanka aan ugu qabanay kooxda kubadda cagta ee markaa aynu la ciyaarina yiri Wolves. wixii dhacay waa ay cadeyd uma sheegi kartid taageerayaasha in ay isdajiyaan sababtoo ah dagaal adag ayaa markaasi ka jiray ku guuleysiga koobka Premier League u dhaxeeyay kooxda Manchester City iyo waliba kooxda Liverpool. laakiin City waa ay guuleysatay oo koobkii waa ay qaaday. inaguna rajadeen waxay tahay UEFA Champions League inaan ku guuleysno laakiin koobka Premier League City waan ugu hambalyeynayna ayuu hadalkiisa ku soo koobay Jurgen Klopp.